Waxaa maanta oo Sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha 8aad 2026 la xaqiijiyay geerida ku timid xiddiga kubadda cagta adduunka iyo ciyaaryahanka ugu caansan kubadda cagta ee Lionel Messi aabihii. Jorge Messi oo ah aabbaha dhalay xiddiga kubadda cagta adduunka Lionel Messi ayaa 68 jir ku geeriyooday fiidnimadii xalay oo Jimco ahayd, waxaana maanta oo Sabti ah si rasmi ah u xaqiijiyay warbaahinada kala duwan ee dalkaasi iyo sidoo kale qoyska uu ka dhashay 68 jirkan dhalay xiddiga kubadda cagta adduunka. Wargeyska Marca ayaa ahaa wargeyskii ugu horeeyay ee soo tabiyay geerida xiddiga kubadda cagta adduunka aabihii. Jorge Messi ayaa lagu soo waramayaa in muddo ah uu ku xanuunsanayay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalo magaalada Rosario ee uu asal ahaan ka soo jeeday ee waddankaasi Argentine. Bishii Juun ayaa intii uu socday koobka adduunka waxaa lagu soo waramayaa in xiddigada iyo aktarada weyn ee reer Argentine Florencia Pena oo 51 jir ah ay warbaahinta ka sheegtay in uu geeriyooday. Ha yeeshee warkaasi ayaa been noqday, waxa ayna xiddigtan ama aktaradan weyn iska casishay xilkii ay u haystay barnaamijka ka baxa TV-ga ee El Show del oo tabinayay ciyaarihii kala duwanaa ee koobka adduunka. Waxa ayna raaligelin buuxa siisay qoyska iyo sidoo kale xiddiga kubadda cagta adduunka ee Lionel Messi. Ha yeeshee waxaa in muddo ah warbaahinada qaar ay tabinayeen xanuunka Jorge Messi ma ahayn oo keliya aabbaha Leo ee waxa uu ahaa tababarihiisii, barbaariyihiisii kubadda cagta iyo sidoo kale qofka uu ku tashanaya marka ay timaado dhanka kubadda cagta. Lionel Messi ayaa hadda warbaahinta iyo sidoo kale bahda isboortiga dunida waxa ay u tirayaan tacsi ku aadan geerida ku timid aabihii Jorge Messi, waxaana lagu soo waramayaa in xiddiga kubadda cagta adduunka uu dareemayo murugo aad u xoogan maadaama aabihii oo keliya uusan ahayn uu ahaa barbaariyihii iyo sidoo kale ninka ka dambeeyay guulaha taariikhiga ah ee uu ka dhigay garoomada kubadda cagta adduunka. Waxaana lagu soo waramayaa xiddiga badan iyo taageerayaal badan oo Messi garab taagan in ay hadda isu diyaarinayaan in ay u kicitimaan magaalada Rosario, halkaasoo la filayo in uu ka dhaco dugta loo sameynayo xiddiga kubadda cagta adduunka Lionel Messi aabihii. Jorge waxa uu ahaa qof qiimo gaar ah ku leh Messi agtiisa maadaama uu ahaa taageerihiisa koowaad, garab istaagiisa koowaad, tababarihiisa iyo sidoo kale ninkii ka dhabeeyay riyooyinkii kubadda cagta adduunka ee uu lahaa Lionel Messi, haddana ka gaaray kubadda cagta adduunka taariikhdiisana in baalasha dahabiga ee kubadda cagta adduunka in uu ku qoro aabihii ka dambeeyay. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.